soo dhawaada ilmaadeerayaal maanta barnaamij xaqiiqahan ka hadlaya adiga idaawanaya waxaan ka codsanayaa like iyo share iyo wax walba ugu kaalmeen waa xanaaqsanahay anoo wajigaygu u faraxsanayn daarto saana waxba jira labadii container ee ka soo degtay magaalada Muqdisho warar badan oo dacaayado suuqa la gelinayaa soo baxay waxa la leeyahay labada container waxa laga leeyahay qaatuma iska laho waxay u soo gadatay dagaalka wadakada Muqdisho ka soo degsatay aqliga bili aadamka saxda marka isticmaalno oo aan run sheegno dadkii ka dambeeyay falkan ay jaheynayaan dadka dhinac kale u jaheynayaan oo siyaasad iyo bulshada loo isticmaalayo annaguna meeshaan aan fadhino waa inaan runta ka hadalnaa xaqiiqada soo gudbinaa waa sax qaatuma dagaal ku jirtaa hubna adduunka way ka soo gadan kartaa ciidan male nooc rabana way ka soo dhigan karaan ama kunjiyada halaada ama bumbahaada ama koofiyaada dagaal ku jiraan waa sax laakiin aqliga bili aadamka markii la isticmaalo qaatuma halkay ku taala dul bahantalkay degan yihiin oo Muqdisho degan yihiin madarisi leeyihiin halkee loo marsiin karaa hubkaan wax aqliga geli karaa la sheegaa nimanka u soo hiiliyay oo la jooga meesha Buntland ahayn ma Buntland laba dekadood lahayn ma Buntland ma gaacadiisa ka soo xiran karin ma boosaaso u muuqatiisa ka soo xiran karin oo hal maalin soo soconaysa Muqdisho oo distance-gaas u jiro 1500 1600 markay ugu yaraato u jirto 1700 maxaa ka soo dejiyay diyaaradda lagu soo qaaday intay joogtaa intee qaatuma ku keeni kartaa wax qiyaaliyo saasa suuq yahay labada container qaatuma iska leh ma sheegaya oo qofna inaan ku xadgudbo ma rabo baaritaanka ay nisa ku jirtaan qof inaan ugu hordhac ma rabo qofka aqaan xataa magaciisa ma soo gudbinayo laakiin xildhibaano askartooda in la qabtaan ogaa aniga oo falkan gacan kula jira xildhibaano askartooda xildhibaan askarigiisa waardiinay in la qabtay oo falkan lagu qabtaan ogaa okay haddii Muqdisho maanta laga dhaadhiciyo hubkaas tira weynaa oo loo isticmaali rabay madaxda in lagu toogto qoryaha kanjiyada oo toosh kale oo kaamirada leh oo silent killer ka yiraahdo oo xabada dhawqeeda qariya celiye oo xabada duu ay dhacdo aan bug aysa dhaheeno ayadoo silent ay baxayso qof kale ku dhacayso ayadoo dhawaaqeeda la maqal meesha laga soo ridina aan la aqoon qofka ku ag joogan oo dhawaaqeeda maqleen qash kaliya maqlaysa ay amaanka la taabtay qorgaas asaga Muqdisho waxa loo keenay big mission waxay ahayd in dabaqyada xamar la koro lagu toogto dadka madaxnimada dawladda hogaaminay maanta meel iga qor nimanka rafarayana waa aqaanaanay mana magac dhabay nimanka rafaraya oo Xasan Sheekh iyo u fakaray oo naftiisa iyo dhigiisa u fakaray ayadoo bareer cad ah ay rabeen inay dilaan ayadoo qiyaamana waxba lama aha siyaasad kale iyo fal kale ma yaqaanaan ninkii hadda koor uu ka soo badbaaday Xasan Sheekh Maxamuud oo hotel Maida ku weeraray oo inuu nafta dhaafsho rabay yaa maantay soo qiyaano ku dilay waxba lama aha raggaasana qoryaha soo gatay weligeena la iga dhaadhicin maayo aniga wax kasta dil ay sheegan leema sheegi karo qoryahaas qaatuma iska leh qaatumana yaa la magac dhabin lacaga la siinaya loo diraya maaragtay ii sheegeen garaadiyada hubka sheeganaya garaadiyada waxay leeyihiin ii sheegeen hubkan annaka iska lahayn annaku noo soo degay dawladda Xasan Sheekh dagaal ku jirnaa noo soo daa horta haddii ayba dhacdaba hubkaas ay lahaayeen qaatuma dawladda Soomaaliya beela isku hubayn mayso hubkaas gacanteedu gala oo beela isku hubayn mayso iskuna lahayn maayaan beela Soomaaliyeed laakiin sheekada laga dhaadhicinayo reer Muqdisho oo riwaayada ah la qila ah waxaan la qila ah ilaa hadeertaan ragkii falkan ka dambeeyo wada aqaano oo waxaan soo iibiyay oo ragga xildhibaanada wakiilada xamar u joogaan inay maanta dadkii jahawariirinayaan oo leeyihiin markabkii meel kale loo bedelay qaatuma iska leh reer nisa ka wada iyo dawladda Xasan Sheekh codsi labaad aan u diray ilaahay ku dhaariyay qofka qaraabada ugu dhow ninka baaray dambiga walaalkiis walaashiis ehelkiis hooyadiis day soo gasho
إلهي إن كداري كعدالة فلا إلهي إن كداري أمد الصومالية بدبادية وحكو بدبادسان وحان أركيسين مركي بابور لوصو عباي انتي قفا نوغد بالله انتي قفا نفتك وايلين كيسو بوكر وها وحيالي كدع جيرو هوتيلada ahaayeen wixii iska kaana dhaafi jiro maalin kasta lagu qarxin jiray ahayd hubka lagu qarxiyo maalin kasta inta la dhaxmara dibna lagu soo celin jiray maanta waa qabateen Soomaaliya ilaahay in ku dhaariyo ragii soo gaday ilaa Singapore ilaa China containerka laga soo gaday asagoo maran waxaana laga soo raray containerkii hore China laga soo raray Singapore soo mara Singapore markab kale ka soo raaca uu soo socdo Dubai uu ka soo bedeshay uu soo socdo meesha la yiraahdo Bombaaso 8 maalmood yimid Muqdisho ku soo xirtay intaas track numberkiisa anigu waa fiirshay jidku maro dhan iyo inta train iyo inta maaragtay isbedelaysa markab iyo serial numberkooda waxa dhan waa arka track numberkii Google kan galshay ninkii ka soo gaday China waa kambanide hal tixraacda kambanigii Soomaaliga ahaa ninkii u keensaday waa la yaqaanaa waa la soo qaban karaa China lagu soo qaban karaa hadduu carar bartu taga adduunku waa international la soo qabto sharci wataade sharcigu lahaa la tixraac yanku ahaa dawladdu la degan yahay laga soo qabto waa argagixiso waa ninka Soomaaliya baabi'inay nin la deyn karana maana la raad raaca ninkaas sharcigiisana lagu raad raaco ninku ahaana sharcigiisa ku sheegay wax caday ahayd laga tiri karo laga bedeli karo rasiidkii oo ku soo baxay markabku tracking number uu kala laga bedeli karo waa in tracking numberkaas hawada laga saaraa oo magac been oo kale markaas qadkii hore lumay laakiin trackingkii aan haysanaa waxaan haysanaa la raaci karo oo Google-ka ku jira oo cad dadkii soo dirana bartsa laga helayaa waa aysi kuwa loo qabto xamar wakiilada oo ahaya baabuurta la qabtay iska badbaada ilaahay in ku dhaariya qabiil haday la hoos gashay haday jufay la hoos gashay haday ninka ugu sareeyo dawladda la hoos gaso yaa la deyn xalanaha loo geeyay xalana yuusan noqon meel dad laga awood badan yahay kaliya lagu soo xiro ee ha noqdo meel nin ganacsada oo weyn oo milyaneer lagu xiro lagu toogto meel nin sarkaala oo lagu qabtay bahashaan oo kale lagu toogto meel nin maaragtay wasiira haddii falkaan oo kale lagu qabtay lagu toogto ha noqoto xalano si waddanka nagu badbaado dadka nagu badbaado dalka nagu badbaado maxkamadaha ama qoliyooyinka cadaaladda waxaan ka codsanayaa arrinkaas ayada ah inaba aysan ka yeelin haddii la musuqmaasuqo oo ay qolo walba musuqmaasuqdo inaysan ka yeelin daba galaan aan codsanayaa ma ahayn arrin fudud mana ahayn arrin la fududaysan karo arrinka meeshaas ka dhacay arrin halistiisa wato oo halis badan u ahaa madaxana la rabay in lagu dilo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana badbaadshay ducadu nooga soo duceeyay xasan sheekh maxamuud xajka aan ku fakarnaa islaanu isku maalinna way aad wax maalinta ka horeysana maaragtay isha midaan la qabtay midkii dambana midaan la qabtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba isku soo aadaadshay ilaahay baana badbaadshay ummadda Soomaaliyeena badbaadshay baxar weyn aan ka fakarno shay weyn aan ka fakarno sidaas awgeed ummadda Soomaaliyeed way badbaaday ee waxay ka badbaaday inta isla fahno isla garano aan maaragtay dadkii falkaas ka dambeeyay xalana tiirkiisa ku soo xirno asxaan yaa loo sameey hadduu title-ku rabaha wato waa soo sheeg ninku rabaha ahaada waa soo sheeg qoladu rabaha ahaada waa soo sheeg aad baan idin salaamaya barnaamijkan share gareey meel walba geliye waa xil guntado ka codsanaya waxyaalahan oo kale marka aragtid oo biyo kama dhibcaanka halista ah ila qaad group walba geli WhatsApp-ka ku dhaxdir group-yadiisa waxa ku dhex jirta Messenger-ka waxa ku dhex jirta qolalka group-yada waxa ku dhex jirta meel walba qofka bini aadanka wax lagu diri karo lagu share gareyn karo sababtoo waxaan ka hadlaa xaq iyo xaqiiqan ka hadlaa qofna farta kuma fiiqin qofna ma aflagaadeen dawladdan wax ma dhibin ayadan difaaciye dadka naga badbaaday ilaahay uu noo badbaadsana waa ku sheegay waxa aan ka badbaadnana waa ku sheegay waxa la qabtay oo dawladda gacanta ku dhigtana waa ku sheegay in laga cadaalad faro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad ka cadaalad fadshid ummadda dambe xataa kugu fakan doonta cadaaladaada adigana waa badbaadi doontaa ka cadaalad fataan kuu soo gudbi barnaamijkan meel walbana geli dadkana gaarsiiya
aad iyo aadan u mahadsantiin anigoo xil guntada weyn